dhawaada ninkan naagtan oo soo guursaday kadib wuxuu arkay hooyadiisa guriga joogto wuxuu ku dhahaa adiga guriga maxaa u joogtaa waxa la rabay inaad mar hore meeshan ka tagto gurigan aad u jeedid hal qof loogu talagalay halka qofna waa tanaayo qoftan waaye adiga iska bax waxay weydiinaysaa hadii aad sidaan rabto mar hore maxay ugu soo sheegi weysay wuxuu ku dhahaa adiga waxaad igu dhahday gurigan waa ka tagaa marka hadda waxa la gaaray waqti aad tagi leedahay waa inaad baxdaa waxay dhahmaagaysaa guriga magaciiga ku qoran laakiin wuxuu u sheegay inuu magaciisa mar hore ka bedelay uu ku bedeshay magaciisa qoftii oo soo guursanaya intay ka roonaatay waxay ku dhahaysaa laakiin midaan hooyadada waaye si wanaagsan ula dhaqan laakiin isagu xaaskiisa xitaa ma dhigeysanayo hooyadiisa intuu gacanta soo qabto banaanka u tuura iyadoo isla markii hore kama bixisay waqti badan oo ay ku celcelinaysa albaabka iga fur hal mar albaabkiisa soo fura wanaag kama ahay boorsideedu u soo tuura albaabkiisana dib u xirana xaaskiisana wuxuu u sheegay inay walwalka iska dayso oo qoftan ay cariiri kaliya ahayd laakiin iyadu waxay ku dhahaysaa ma aamini karo in hooyadii ku dhashay banaanka u bixiso ka waran haday baxda xagga seexane waqti badan oo warku akhrinayay intii ku daashay warkiisa waxay iska dhigaysaa qof hadda kadib isaga la jiro orod baxay ku dhahaysaa hadii aad rabtid kor waa aadi kartaa aniga hadda waa baxa masqushaan aadi xoogaa kadibna waa ka daba imaana isagana uu ogolaana markii uu baxa albaabkii intay soo furtay waxay arkaysaa inay maamadii wali banaanka taagan tahay kadib dhinaceeda iimaane maamadu midaan waxay ku dhahaysaa aniga banaanka waa ii soo bixiseen laakiin ma aqaan meel aan aado intaasna waxaaba iiga daran inuu wiilkaygii banaanka ii soo tuuray si isaga qof shisheeye ka ah oo kale inaan ku caawiyaan halkan u imaaday ku dhahe iyaduna waxay weydiinay runta miyaa sidee rabtaa inay ii caawiso hadda waxay ku dhahaysaa adiga si qarsoodiyaha guriga ku soo galay si qarsoodiyahana waa ku dhex noolaanee wiilkaaguna ma awoodi doono markaas inuu ku arko maamadu intay yaabtay midaan waxay weydiinaysaa oo hadda ma waxaad leedahay gurigaaga ku dhex dhuumo hahay ku dhahaysaa sababtoo ah adiga wadda kale kuma banaano intay soo waday guriga gudaha u soo gelinay isla markiina wiilkeedu hadlaaya intay maqashay masqusha gudaha u galay weyn isku soo xiree midaan ninkeedii marka uu yimaado wuxuu weydiinaa halkee ka baxday maanta dhan ku sugaayay waxay awoodaysaa in mawduucii uu ka hadlayo oo dhanba ay u bedesho intaasna waxay u raacinay laba galaas oo cabitaan ah noo doonaha ee kor ugu siisay kuwana ogolaana maamadii intay meeshii masqusha ka furtay waxay ku dhahaysaa bustayo barkina ku keenaa marka meesha caawo iska seexo iyaduna intay yaabtay waxay weydiinaysaa masqusha seexmi ay ugu dhahday haddii aad sidaa sameey weysay ku dhahaysaa waxaa laga yaabaa inuu wiilkaagu ku arko anaguna aan baxar galno subaxdii alisidii intay soo kacday waxay bilaabaysaa inay maamadii meesha ka dhex raadisay weyna ka weyne iyadoo raadistii wada ayaa ninkeedii intuu arko wuxuu dhahaa saaka maxaa kugu dhacay sidaa soo kacday waxaan u maleynayaa inay wax ka dhumeen adigoo meelaha barbaraha ku jiiday in guriga alaabtiisa ay wax ka dhiman yihiin inay fiirfiirinaysay u sheegay asna wuxuu taagan yahay loo baahna waxaas inaad ka walwasho gurigaana ujeedid wax walba way u dhammaystiran yihiin ma u jeedido gurigan inuu aad u quruxsan yahay hooyadaya isaga ii gaday weliba waxay igu gaday dhaxalkii aabbahay waxay ku dhahaysaa runtaa waaye gurigan aad u quruxsan yahay wax walbana way u dhammaystiran yihiin laakiin ma ka sii fiicnaa laheen oo haddii hooyadaa dib u soo celin lahayd si ay noola joogto wuxuu taagan yahay lama baahna inaad qoftaas ka walwasho iyada saaxiibadeedu way badan yihiin haddii rabta dariska iska seexanaysa iska daay intay ka soo tagtay maamadii sii raadinay waxay arkay iyadoo beerta dhexdeeda iska marmarayso waxay u sheegaysaa xala dhan markii ay masqusha hurdaysa inuu dhabarku xanuunay ayna istaag ku seexatay sidaas darteeda beerta uu dhex socsocday hadda kadibna diyaar uma ihi inay xaaladan kusii jira ee waa baxaa si aan wax uga qabto dhinaca kale labadooda isbuuca ay isqabeen maalin kasta way isdagaalayeen ugu dambeyn middaa waxay go'aansatay inay ka tagto iyada oo mashquulsan oo taleefon ku hadlaysa intuu arkuu ka faa'iidaysana banaanku u soo baxa kadib albaabkii dusha uga xiraa ayadiina waa tanahay hadeertaan ay aragtay in albaabka dusha looga xiray xoogaa kadib waa kana intuu soo laabto ubax hore u soo gatay kadib iyaduu siinaa raali noqo camal xoogaa yar oo warku akhrinayay way ka ogolaanay ubixiisna way ka qaadanay laakiin nasiib darro mar kale intay wax ku soo dhacaanay dib isku dagaalayaan asagana waa kanahay ubixisiyo dib ugu ceshana iyagoo dagaalkoodii wato ayaa waxaa u imaanaya hooyadiis iyo nin boolis ah oo la socdo maxaa meesha ka samaynaysaa ku dhaaniga booliskana maxaa u wadataa wuxuu u sheegaa inay maamadan ka soo gudbisay dacwo tuuganimo ah ayaduna waraaqadan intay u dhiibtay waxay ku dhahaysaa gurigan weli magaciiga ku qoran sidaas darteeda tuuganimo kugu eedeeyey waxaad isku dayday inaad gurigayga iga qaadato aan banaanka ii tuurto midka booliska gabadhiya wuxuu ku dhahaa midkan haddii uu ku dhibaateeyey waa dacway kartaa kadib intuu qabto banaanka guriga uga saaraa si loo xiro maamadu gabadhiya waxay uga mahadcelinaysaa sida wanaagsan ay ula dhaqantay waxayna uga tacsiinaysaa maadaama ay guursatay wiil aan si wanaagsan ula dhaqmaynin muuqaalkun intaasoo ku ekaaya leeg noosaa